السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامة أمدنا محمد مالي جوجان بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحن كهذينا قرحي إن محيتي الأمة الصومالية إني بس يوقف العلسي وقدام بينتي إن شركتي كسوق بجبودي معناتي دقال كان وحكدم بيا ودمش الشيء wadamo shisheeye ha ka dambeeyeen laakiin wadamada shisheeye yaa kuu keenay baa meesha taalo Soomaaliya yaa kuu keenay soo mid kula maxay tani dhaqana oo kula dhiiga oo kula maxay tani wadan ah soo kuma keenin soo kaas isagu kuu soo hogaamin maayo wadan maxay tani kasta oo cad kula ah hadaanad adigu isu keenin ma ku iman karo mana isku soo dhiirin karo inuu ku yimaado imaaraadka ka dambeeyay jarmalku maxay tani wuxuu doonayay maxay ahaa inuu laayo maxay tani injineer ah maxay tani turki injineer turkiga ah muxuu u leynayaa Soomaaliya ma isaga imaaraadku tan kale injineerada turkiga ahi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariistee Soomaaliya maxay tani walaal kale aan turkiga ahayn ma laha markuu leeynayo maxay tani ma geed bay ugu xirxiran yihiin mise shacabka inta maxay tani gooni bay ka yihiin shacabka maxay tani Soomaaliyeed waxaas iyo wax la mid ah haade wax laga dulqaato ma aha Soomaalida inay gacmahaas qabsadaan ayaa looga baahan yahay tan kale anigu dhaliisha ugu weyn waxaan saarayaa shacabka sababtu tahay shacabku iyaga waxaan ku iri nimankan u baar dheereeyay haday ku mudaharaadi lahaayeen oo maxay tiri nimanka runta farta ka saar lahaayeen nimankaas meel bay fadhiisan lahaayeen laakiin iyagoo la leynayo oo ay og yihiin oo imaaraadka og yihiin inay dabada ku wataan oo og yihiin maxay tiri wadamo shisheeye inay dabada ku wataan oo og yihiin in cadowga Soomaaliya oo dhan dabada ku wataan ayay haddana maxay tiri aanay wax allaaliyo xadeelo waxay ka qabanayaan aanay jirin marka shacabka Soomaaliyeed maalin walba inay maxay tani dhintaan soo iyagu sabab ma aha markay cadawga iska qaban waayeen dhexdooda ku nool oo iyaga ku abtirsada haade soo marka maalin kasta dhiman maayaan maalintay tagaan imaaraadka ay ku soo shirayeen iyo maalintii qarax u dhaxay waxba uma dhaxaynin markay tagaan oo soo shireen oo waxay soo qadan lahayn soo qaateen oo maxay hayteen go'aankii ay gaari lahayn la soo gaareen imaaraadka ayay soo noqdeen justi ay saa u yimaadeen qarxi baa xigay halka waxa ku dhintay waa wada dhalinyaro yar oo waxaan ku yiri maxay hayteen ina jaamacadda hadda dhameynaysay ina maxay hayteen iskuul socotay hooyooyin masaakiin oo maxay hayteen qowtal daruurigoodi u soo raadiyay caruurtooda ayaa ugu badan oo meesha ku dhintay iyo dhalinyaro hadda qalin jabinaysay kuwa hadda jaamacadda u fadhiisanayay kuwa iskuul ku sii socday ninkaas waxa sameynaya maxay hayteen shacabka Soomaaliyeed sida uu maxay tani dhiigiisa uga ganacsanaya isaga caruurtiisa ma joogaan adduunku geystay diirna xama ku yaalo uma naxayo uma damqanayo meeriyahan isaga uga soo horeynaya dadka waxa loo sameeynayaana waa kursiga fiil Soomaaliya yaala bal way hadaba hadiiba maxay teenay cadawganow calooshooda u shaqaystooyinow jaajuusiintiyay hadiiba aad marisaan dadkii oo maalin walba maxay teenay 800 aad dishaan oo caruur iyo dhalinyaro ah kursiga aad u roorsan yaad ku xukumaysan taas is weydiin leh
yaa xukumaysaan yaa idiin soo hadhaya xukumaysaan ila waaba tanoo dhalin maxay tiri layse muxuu ahaa dhalintii iyo carruurtiiba layse iyo maatadii yaa iyay xukumayaan markay maalmalba 800 dilaan damiirka balaa idinka qaada adduunyada ilaahigay wallaahi bilaahi calool xumada soomaaliya dhex taala inaanay noloshaada inayna qofkii damiir iyo dhiig leh inaanay weligeed ilaheed ka hadhaynin inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun baanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay subxaana wa tacaala intii halkaa ku dhimatay ee maatada ahayd ee caruurta ahayd ee dhalinyarada yarada haddar maxay tani iskuullada maxay tani qaybna u socotay qaybna maxay tani jaamacada ka qalin jabinayeen qaarna dhex fadhiyeen een waxba iska ogeen ee iyagoo nabad qaba oo maxay hayteen caafimaad qaba hooyooyinkood iyo ehelkoodii kasoo dhaqaaqay ee halkaa lagu laayay waa loogu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay kitaabkooda midigtaha ka siiyo laakiin shacabka soomaaliyeed waa inay nimankan iska qabtaan nimankan waa inay iska qabtaan haddii kale wallaahi bilaahi tallahi inaan midh ka hadhaynin imaaraadka maxaa noo keenay imaaraadka soomaaliya misagaa le dowladduna waa inay maxay tani imaaraadka ay ku dacweysaa muxuu ahaa qaramada midoobay waa inay dacwo ka gudbiyaan nimankaa waa in lagu sharciyeeyaa ilaa ay maxay hayteen dhalinyaradii halkaa ku maratay ilaa kuwii xitaa soobe ku dhintay ilaa kuwii ka horreeyey kulli iyaga ka wada dambeeya imaaraadka ka dambeeye heedhe waa in lagu dacweeyaa dowladdu waa inay taas ay ku dacweeyaan nimankaas oo nimankaa maxay tahay imaaraadka meel laga saaraa soomaaliya nimankan kale uguska waaweyn ee jaajuusiinta ah ee caruurahoodii intay kaxaysteen caruuraha reeraha kale sida maxay tahay maalinba 800 laynaya waa in sharciga islaamka la hor keenaa waa in kulligooda maxkamad la saara maxaa loo fiirsanayaa dowladda haddaan awood lahayn oo aanay xukumi karaynin jaajuusiinta dee maxaa dowladda markaa ee maalinba dhalinyarada 800 loo laynayo dowladda sotay awoodda lahayd oo itaalka lahayd maxay tahay dowladdan bilaa awoodda bilaa itaalka ahayd dee qabiil baa laga baqayaa hadda haddii dowladdu tallaabo way ka qaadi lahayd laakiin yaa iyo qabiil xaggaa laga aadaya haye dowladdu tay ka baqaysaa oo keliya wax weeyaan in halkaa dee la kala safto oo nin walba qabiilkiisa halkaa hub iyo maxay tahay ciidan soo urursado taa wey tay ka baqayaan waxay ka baqayaan in la yidhaahdo dab bay dhex dhigeen ummaddii soomaaliyeed intii hadhayna dowladda maxay tahay waxaan u sheegaynaa inay nimankaa tallaabo ka qabtaan inay nimankaa tallaabo ka qaadaan nimankaa kala dibirada waaweyn ee halkaa jooga ee kursi say u raadinayeen ummaddii marayay nimankaa weyn sharciga islaamka la hor keena waa gacan ku dhiiglayaal ilaa maalintii ay muqdisho ka soo degeen qarax iyo waxa ka dhacaya iyo dilal qorshaysan waa la ogyahay haddana wax runta u sheegaya ma jiraan iyo wax ku caddaynaya midna silic baa soomaaliyada la maagay shacabkuna waxaanu leenahay shacabow haddaydan idinku waddankiina u istaagin oo aydan idinku iska qabanin nimankan dibirada weyna idiin soo shaqo tegay ee mid waliba waxaan ku yidhi midba meel ka soo dhoofay oo yidhi soomaaliya maxay tani caalamka guryo laga dhistaa oo lacag barabaraa la iska cunaayo maxay tani laga soo qaatay muxuu ahaa cadowgaaga haddaydan iska qaban sidaa unbaad ahaanaysaan wallaahi bilaahi tallaahi saasad ahaanaysaan ee nimankaa iska qabta shacabka waa inay u istaagaan midnimadooda iyo dowladnimadooda haddaanay shacabka u istaagin midnimadooda iyo dowladnimadooda weligood saas ahaanaya maxaa laga hadlayaa